bismillaahi raxmaani raxiim. Isku soo noqod wanaagsan. Waxaan qaadan doonaa sidee textiga ama qoraalka loogu socodsiin karaa ama loogu qori karaa line ama sadar ama sidoo kale circle ama wareegin, yani shape wareegsan oo kale in qaab qoraal ah ugu qortid oo kale. Marka ku soo dhawaada cashirkeena. Waxaan sameyn doonaa markaan isku dambeysay design noocan ah wadnay. Marka hadeertaan wax noo muuqdo waxa waaye shape iyo qoraal iyo logo meesha saaran. Marka waxaan sameynaynaa in qoraalkan san shrine shoes oo kale Mogadisho sidoo kale qaybtan line-ka asagana waa sameyn karnaa oo line-ka san inuu ugu qormo qoraalka oo kale ayadana sameynayna. Marka soo dhawaada waxaan sameynaynaa marka hore kuwaan iska tuureynaa. Kuwaan marka iska tuurno waxaan ku bilaabeynaa qaybta line-ka kan dooro. Waxaan riixdaa qaybtan paint tool-ka uu ku jiro leftiga adoo haayo waa riixaysaa, kadib waxaa ku dhufanaysaa freeform markaa ku dhufato waxaa iska xaqiijinaysaa marka hore qaybtan setting, kadibna meeshaan oo kale 2 inuu ku yahay laga yaabaa 5 ka dhig. Kadib waxaan imaanaynaa meeshaan, kadibna waxaan leenahay tusaale line caadi iska sawiranaynaa noocan oo kale, ama tusaale waxaan leenahay escape ama delete. waxaan leenahay noocan oo kale rabnaa qoraal inaan iskaga qorno. waxaan tagaynaa textiga qaybtan ku dhufo, kadib text iskaga dhufo, kadib waxaan leenahay qoraalka textiga waxaan iska hubinaynaa marka hore size-ka uu leeyahay textiga. waxaan ka dhigaynaa 10 point oo kale xogaa normal la arki karo waaye. haddii uu ka weyn yahay kale xogaa dhibaato inaan kala kulanta laga yaabaa uu shape-ka meesha ku yaala ama line-ka meesha ku yaala uu ka yar yahay. marka qoraal yani point size weyn hadaa qaadato kala xogaa culeys kaaga imaan karo. u gudubno qaybta marka textiga waxaa sameynaysaa meeshaan waxaa ku dhufanaysaa pointigan ku dhufo, kadib isla marka qoraalka noogu diyaariysan bal waxaa leenahay shrine. okay, marka saan oo kale u qortid waxaa sameyn kartaa in aad jiidi kartid, sikin kartid. waxaa kaloo sameyn kartaa in heelaad aad saartid, kadibna aad dhahdo tusaale center ka dhig oo kale, left ka dhig, right ka dhig, wax noocaas oo kale inaad sameyn kartid. centerka noogu soo celi. waxaa sameynaynaa marka in jiidi karno. marka waxaa sameynaynaa selection tool-ka imaanaynaa, path selection ku dhufo, kadib qaybtan wuxuu leeyahay ilaa xaggaas waa u jiidi kartaa. sidoo kale waa soo sikin kartaa haddana soo majeed. qaybta dambe haddaad tagta ayadana sidoo kale waa sikin kartaa, laakiin wuxuu sameynayaa in uu kaa qariyo qayb ka mid ah qoraalka sababtoo ah space-kii uu ku qormaya kusoo xiriiris. marka gadaal oga siko si hadhow space fiican oo u helo. marka qaabkaas oo kale ugu dhex socodsiin kartaa. waxaa u gudbaynaa hadeertaan shape-ka. waxaa sameynaynaa marka midkaan inta iskaga dhufo. fartana sidoo kale ha iloobin, midabka waa bedelan kartaa, heelaad saar, kadibna meesha imaa color nooca rabti madow oo kale ka dhigan kartaa markaasa. okay, waxaan tools waaye. marka wax ugu muhiimsan la rabo tricks-ka iyo qaabka loo isticmaalo inaad baratid. marka muhiim maaha qaabka uu yaalo inuu ku dhaxan yahay inuu xun yahay, farta la isticmaalo waxaas muhiim ah. waxa muhiimka waxa waaye toolska iyo farsamada la isticmaalo. hadhow baahidaada gaarka ah adaa yaqaan marka saa u isticmaalisid. hadeerta waxaan u gudbaynaa qaybta shape-ka oo circle-ka. shape-ka waa kana ku dhufo, riix. markaa riixid ellipse ku soo dhufo, kadib waxaa leenahay marka meeshaan imaanaysaa waxaa iska hubinaysaa in path uusan ahayn uu shape uu yahay. marka shape aa ka dhigaysaa, kadib stroke-ga waa iska xiraysaa. markaa iska xirto waxaa imaanaysaa inta, kadib waxaa leenahay shift qabanaysaa. shift markaa qabato xogaa cabir noocan oo isla eg 4 dhinac kuu soo saaraya. color-ka rabnaa inaa bedelno, double click waxaa la siinaysaa layer-ka uu ka kooban yahay shape-ka. kadib waxaa leenahay midkaan kale noogu dhufo color-ka, kadib selection tool-ka. okay, wax yar noo soo siki. hadda marka waxaan sameynaynaa in circle-ka qoraalka ku qormaya inaan soo diyaarino. waxaa leenahay
ellipse ku laabo kadibna waxaan dooranaynaa shape-ka oo ellipse ahaa meeshaan marka bedelaynaa waxa ka dhigaynaa path marka ka dhigno waxa sameeynaa shift qabo kadibna waxa soo gelinaynaa qaybtaas yarta okay marka si hadhow move ugu sameysid waxa isticmaali kartaa in aad soo furtid direct selection tool kadibna selection tool kadib aad ka dooratid direct selection tool kadib waxa leenahay soo qabo meelaan camal noo keen waxa isticmaali kartaa keyboard-kaaga falaaraha ku yaala 4 xabo si aad u saxdid cabirkiisa kadib waxa leenahay qoraalka noo soo fur text marka noo soo furto waxa ku dhufataa tusaale meeshaan oo kale okay waxa leenahay shuraim shoes oo kale marka qoraalka saa u jeedo balaaran yahay ama uu weyn yahay marka waxa leenahay noo yaray xoogaa noocaan oo kala ka dhigayna qoraalka adiga ilaa 8 ilaa 7 meelahaas kadib intana white ka dhig okay dheh marka saxda saarayna marka qoraalkii kore waa diyaarinaa kii hoosana oo dhiman waa ku laabanaynaa kadib waxa leenahay ellipse kadibna meeshaan path-ka ku ahaato ha iloobin kadib waxa imaanaynaa meeshaan kadib shift qabo qiyaasa la rabaa okay direct selection tool ku laabo sa u move garaysid okay meelaha camal nooga dhig kadib qoraalka hoos ku qoraynaa marka muqdisho waxa leenahay text-iga imaw kadib waxa leenahay muqdisho marka la imaado noocaan u qori doonaa laakiin dhibaato ma laha waxa sameeynaa muqdisho boga qaab noocaas u qorayna kadib waxa leenahay capital waaye horta xarafka hore capital ka dhigana inta kale okay markaas aan u qorno waxaan rabnaa marka inaan soo jeedino hadda uu fooraraa waxa leenahay marka waxa imaada selection ka imaw waxa imaada path selection tusaale noocaas oo kale ka dhigana waxa qabanaysa marka meesha uu ka bilaawday qabanaysa tusaale ku soo celiyo halena meelahan oo kale qabanaysa kadib hore u jiidaysa marka wuxuu ku soo saaray qaybta kale marka noocan uu soo saaray waxa leenahay okay marka waxa u muudaa hadeerta xogaa inay kala weyn yihiin sababtoo ah kan small waa kan capital ah marka waxa leenahay helaad noo saar okay helaad marka noo saarto sidaas double click dheh helaad noo saar double click marka helaad dukaadiida waxa sameynaysaa text-iga ku dhufanaysaa kadibna helaad double click siinaysaa marka waxa ka dhigaynaa all capital haddii rabnina ka dhigno waxa sameynaynaa qaybtana soo furaysaa kadib waxa dooranaysaa double t isgarab yaalo marka waxa noqonayaa capital markuu noqdo sidaas oo kale ku dhaafi karnaa marka waxa u muudaa hadeerta xogaa muqdisho inay xarfaha hoosta iskaga jiraan marka double click si marka text-iga dooro marka hore kadib double click dheh kadib marka waxa sameynaynaa xogaa xarfaha in space-ka u dhaxeeyo wax yar ku darno noocaas oo kale kadib saxa saarayna okay marka waxaan rabnaa loogada qaybta dhexe inaan soo gelino waxa sameynaynaa loogada qaybta dhexe tusaale meeshaan ka soo qaadanaynaa file-ka waxaan soo dhigi doonaa loogada isticmaalaysi waxaan soo dhigi doonaa Telegram-ka ama mid sample hadaa heli karta isticmaali kartaa meelaha camal soo dhigaynaa kadib xoogaa noo yaray okay waa maasantiin cashirkeena xaggan uu nagu egyahay waa inoo cashirka xiga insha Allah